السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Caleenta geedka sactarka oo shaaha lagu darsado iyo caafimaadka inagaga qarsoon ayaynu ku soo qaadan doonaa muuqaalkeennan. Caleenta geedka sactarka waxaa lagu tiriyaa mid ay ka buuxaan maadooyin badan oo muhiim u ah caafimaad qabka jidhka bini'aadamka. Waxaana caleenta geedka sactarka loo isticmaalaa qaabab kala duwan. Waxaana ka mid ah qaababka loo isticmaalo in shaaha lagu darsado. Marka caleenta geedka sactarka shaaha lagu darsadana waxay leedahay faa'iidooyinkan. Caleenta geedka sactarka oo shaaha lagu darsadaa waxay meesha ka saartaa qufaca ka dhashay hargabka ee aan hore u tegin ama hore u bixin. Sidoo kalena caleenta geedka sactarka oo shaaha lagu darsadaa waxay meesha ka saartaa cilladaha ku dhaca dhuunta, afka iyo ilkahaba. Sidoo kalena marka caleenta geedka sactarka shaaha lagu darsado waxay qofka u furaan cunto qaadashada qofka aan cuntada qaadan ee cuntadiisu ay xun tahay. Dhinaca kalena caleenta geedka sactarka oo si joogta ah shaaha loogu darsadaa waxay caloosha ka saaraan dibirada iyo cilladaha kale ee laga qaado cuntooyinka qaarkood. Waxaanay dhiigga qofka ka dhigaan mid nadiif ah oo si wanaagsan u shaqaynaya. Waxaanay wanaajiyaan caafimaad qabka sanbabada. Waxaanay jidhka ka saaraan qabowga. Mahadsanidin.